aynu ka hormarnay weerar culus ayay ku qaadeen ciidan ka tirsan kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya gudoomiye awood weyn ku dhex lahaa dowladii Farmaajo. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa maanta barqadii la sheegay in lagu weeraray gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Amar uu bixiyey agaasimaha NISA Mahad Salaad ayaa la sheegay in lagu beegsaday gudoomiye Baashi iyadoo la doonayo in laga soo qaado baabuur la sheegay inay leedahay NISA oo uu isagu si gaar ahaaneed u isticmaalo. Ciidamada ka tirsan NISA ayaa weeraray ilaalada gudoomiye Baashi iyaga oo doonaya in awood ay uga soo furtaan gaadiidka ay iska leedahay NISA, balse waxa uu ka dhaga furaystay Baashi in uu soo wareejiyo baabuurtan. Mahad Salaad agaasimaha NISA ayaa amray saraakiisha sirdoonka inay ka soo qaadaan cid walba oo haysata hantida u gaarka ah nabad sugidda Soomaaliya. Waa markii labaad oo uu bixiyey Mahad Salaad amar shaki badan abuuray, taasi oo ay markaasi ciidamadu ku dhaqaaqeen. Kii koowaad waxa uu ahaa sababtii lagu weeraray gurigii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ciidankii halkaas ku sugnaana lagala wareegay. Ma jirto war ka soo baxay taliska NISA iyo gudoomiye Baashi oo ku aadan faahfaahin ku saabsan dhacdadan, waxaana jirta cabsi aad u xooggan oo ay qabaan saraakiil iyo dad kale oo shacab iyo ciidanba isugu jira oo iyaguna markaasi ka baqdin qaba maadaama Farmaajo ay gacansaar la lahaayeen in si toosa uu uga arguto xilligan Mahad Maxamed Salaad, taliyaha cusub ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.